waxaan bistoosnay oon garannay inaan u tanaasulno ummadda Soomaaliyeed oo aan dhibkeeda aanan ka dhiganin arrin aan annaguna qayb ka qaadanno inaysan noqon ee aan ogolaanno oo aan nidhaahno waxaan doonaynaa in si wanaag ah wax loo qaybsado laakiin aan dagaal iyo dhiig la daadiyo wax loo qaybsan in badanna waa ku dhawaaqnay markii aan aragnay inaysan shaqaynayn oo dagaal iyo layn dadkii la laynayo ay soo baxday intii aan qayb ka noqon lahayn waxaan nidhi qayb ka noqon mayno dagaalka noocaas ah waxaan rabnaa marka in aan caddayno halkaan ka caddayno ahlu sunna wal jamaaca wax laga tanaasuli karo ma ahan waa caqiidada dhan oo islaamka lagamana tanaasuli karo laakiin wax alla wixii kale oo dhan waa laga tanaasuli karaa markaa waxaan jeclaysanay dhibka markaa ummaddu ku jirto bal in si looga baxo in la helo maxaa yeelay mu'miniintu waxay la mid yihiin hal jir ah oo qof leeyahay jasadkiisoo kale weeye oogadaadu sida ay kuu xanuujinayso ayaa qofka mu'minka ah oo walaalkaa ahina kuu xanuujinaya marka xanuunkaasna wada qabanahaya daraaddeed ayaan waxaan jeclaysanay dhib wax u keenahaya inaanan ka qayb qaadan arrintaas marka sidaasoo ay tahay wax ahlu sunna wal jamaaca la yidhaahdana wax laga tanaasulay iyo wax laga tanaasulayo midna ma ahan laakiin wixii dhib ummadda u keenaya unbaa laga tanaasulaa ayadaas unbaan tanaasulkanagu uu ahaa ee wax kaleeto ma ahayn markii la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi ayulmuslimiina afdal yaa rasuulallah maxaa ummadda keebaa ugu fadli badan baa la yidhi anfacuhum lilmuslimiin buu yidhi muslimiinta kii ugu waxtar badan baa ugu fadli badan buu yidhi midkii ugu qur-aan akhris badan ma odhan midkii ugu salaad badan ma odhan midkii ugu sadaqa bixin badan ma odhan waxaa la ogaaday ama allisaan ha lagu anfaco ama maal ha lagu anfaco waxa weeye waxa kaliyahoo aan jecelnahay in aan gaarsiino ummadda walaalahana ah wax alla wixii ummadda dhibahaya annagu weliganaba waa nala ku yaqaanay waa ka tanaasulnaa waana ogolaanaa in aanan qayb ka noqon laakiin ahlu sunna wal jamaaca wax laga tanaasulayana ma ahan waana taagnaan doontaa waa jiri doontaa waana jidhaa ilaahayna khayr baan uga rajaynaynaa ummaddaa dhibkii gaaray ilaahay inuu bedel khayr lana siiyo intii dhimatay intii dhib gaarayna ilaahay uu daaweeyo intii dhibaato kaleeto la kulantana ilaahay dhibta ka qaado khayr baanaan idiin rajaynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan in aan go'aansannay in aan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaan waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay marka bulshadeenna waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba haddana horena dowladda federaalka Soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa laga rabaa inay iyadu u samayso ciidankii galmudug laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka laga ilaaliyo argagixisada la rabaa mas'uuliyadaas waxaan rabnaa dawladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa waxa weeye mar rabnaa annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni maalan ba barbagaando iyo wax kaleeto mas'uuliyadaas dawladda ayaan ku ognahay ayada ayaan u dhiibnay ka bacdina waxa weeye ayada waxa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida ayada laga rabaa waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeena sharafta leh
qiimaha badan leh daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlu sunna waljamaaca mas-uuliyiintii galmudug madaxii xukuumadda galmudug aan ahay waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo midnimo ayaan u soo jeedinayaa marka dhammaantiin waxaan idin leenahay shukran jaziilan baan idin leeyahay wabillahi tawfiiq